wax akhrisku waxa lagu tilmaamaa inuu yahay waxaan xuduud iyo zamaan toona lahayn. qofka bay dhahaa cimrigiisu waa wax yar oo tirsan, laakiin qofka wax akhriya waa ziyaada fi lcumri bay dhahdaan, waa qof cumrigiisa kororsanaya, waa ziyaada fi tajriba. waayo waxa aad akhrinaysaa wuxuu kordhinayaa tajaarib qofka kani uu ku helay 10 sannadood buu hal kitaab ku qoray. idan 10 sannadood ee cumriga ka mid ahaa adigu waxaad ku akhriday dhowr saacadood baad waxaad ku heshay 10 sano wax qiimahoodu uu joogay in la sameeyo ayaa adigu waxaad ku heshay dhowr saacadood. walidaalika waxaa lagu tilmaamaa zamanku xad ma leh, oo waxay leeyihiin aqoontu wax akhrisku waa qofkoo isku dayaya dunida intii maskax soo martay inuu la sheekaysto. cabaaqirati alcaalam maanta markaad maktabadda tagtay kutubta islaamiyiinta aada akhrido waxa weeyaan wixii caqli weyn muslimiinta soo maray wixii ay qoreen kaanama aad imaamu shaafici iyo raggii la nooc ahaa la warramayso ama ay kuu warramayaan. waxay yidhaahdaan akhrisku waa waxaan makaanku xadaynin ama meeli xadaynin, oo dad badan oo aanad la kulmi karteen ama aanad arki karteen baad arkaysa oo aada la fadhiisanaysaa. si kale haddaynu u tilmaamno, waagii hore cilmiga shafaaha qura lagu qaadan karayay, inaad qofka u tagto oo aad afkiisa ka soo dhegaysato. laakiin markii ay dadku wixii ay cilmi hayeen waraaqa geliyeen ay gudaha ku qoreen, waxa fududaaday inaad wakhti kasta aad dib u heli karto, xataa iyadoo aan lahaynin aqoon-yahankii ama sheekhii ama khabiirkii waxa kan qoray, iyadoo aan lahaynin in si fudud loo heli karo. ummadda markaa aan abnaadeeda iyo dadkeedu mustawaha aqoontoodu aanu mid kor u socdo ahayn, waa ummad bay yidhaahdaan maanta caalamka la joogo aan la socon karaynin. bale caalamkan cusub waxay dhahdaan xataa mustawaha xoogsigu wuxuu ku xidhmay bay yidhaahdeen mustawaha aqooneed ee aada leedahay, oo dadka wax aan akhrinin waxna qorinin shaqooyinka inta usoo hadhay baaba maxduuda bay yidhahdaan. waxaa shaqaba soo hadhay uu qofku qaban karo ayaa wax maxduuda ah. si kale markaan u tilmaamno waxay dhahdaan maanta macaarifta dunidu siday usii badanayso, sanad walba bay yidhahdaan aqoonta tan sayniska ah maalan 10 to 20% baa aging uu ku dhacaa bay dhahdaan, 10 ilaa 20 ayaa gabowba. haddaad wax akhriyi weydo macnaheedu waxa weeyaan aqoonta aada xambaarsan tahay sanad kasta 10% ka mid a laga baxay. taa macnaheedu waxa weeyaan 10 sano dhowr iyo 10 sannadood markaad nooshay haddii aanad dib wax u akhrinin macluumaadkaad sidataa waa macluumaad gaboobay oo dunida aan ka soconayn ama laga shaqaynayn. walidaalika waxay dhahdaan 30 sannadood ee ugu dambeeyey aqoonta maanta dunida taalaaba leeyahay 90% waxa la cusboonaysiiyey bay dhahaan 30 sannadood ee ugu dambeeyey, oo dib wax badan ay ku soo kordheen. maadaama arrinku caynkaa tahay, xataa caalamka dad yowgii gumaystay markay rabeen dadku inay horumarka ka ilaaliyaan waxay ka ilaaliyeen wax akhriska. maalan waddankan maraykanka la yidhaahda ninka madoowa ku dhaqan markii afrika laga soo raray, dad badan oo afrika laga soo raray dad waxna qora waxna akhriya aqoonna labay haayeen. siiba qaybtii muslimiinta hayda caalamulislaamiga laga soo raray, siiba dad culamaaba xataa ku jiray. markii maraykanka la keenay si loo gumaysto waxaa laga mamnuucay ninka madoobay inuu waxna akhriyi karo waxna qori karo, ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdo, wuxuu doonaya ha ahaado. waxaa laga reebay haba yaraatee shacabkaas dhammaantii inaanay waxba akhriyi karin, waayo waxaa fududaanaysa bay leeyihin in la gumaysan karo ama lahayn karo. haddii dadku aanay waxna akhrinin waxna qorin waxaa fudud in la gumaysan karo. walidaalika baa waxaa loo arkayey maraykanka waagiisii hore ninka madow haddii qiraa'a lagu qabto waxay jariimo qaanuunku uu ciqaabayo. haddii la arko nin madow oo wax akhrinaya waxay jariima qaanuunkuna uu ogol yahay in la ciqaabo. qiraa'adu marka ama wax akhrisku waa micyaarka ama waxa lagu qiimeeyo ummadda horumarkeeda. waxaana yidhahdaan noloshan maanta casrigaa dee la-aanteed maba jirto, xataa alqiraa'a tawdiifiya bay yidhahdaan. waxaad qiyaastaa
magaaladan ay degan tihiin oo aan traffic waxaan ku qoran lahayn oo raashinka waxaan ku dul qoran lahayn oo dawada waxaan ku dul qoran lahayn ama se dadku aanay akhriyi karaynin noloshu say noqon lahayd waxaad qiyaastaa magaaladu aan adresses lahayn waagi hore dee waxba lagu qori jirin soo maaha waxaad qiyaastaa Toronto aan adress ku qorayn la wax traffic sign aanu qorayn wax raashin ku dul qoran aanu jirin يعني waxay noqon lahayd nolol adag oo saacaba in la noolaan karo walidaalka waxay yiraahdaan maanta nolosha casriga dambe iyadu qiraa'o la'aantu suurta galba maaha haddaba qiraa'adu waxa ka asala inay tahay cimrigii oo ziyaadinayso ilaahina subxaanahu wa tacaala wuxuu quraanka inoogu tilmaamayaa cimriga iyo qiimaha uu leeyahay quraan badan baa rabbi wuxuu ku dhaaranayaa waqtiga wadduha wal-layli idha saja والعصر إن الإنسان لفي خسر إيه وحي لمده أما بأو النبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك ما لتا قيامه كزول ما يان قمدي سلولك يعني والله حين إياه إلا إيوه أفر شيء لويديه أفر شيء لما شيء بقى عمرك كصاب سيسان تامعنا هذو حويان وحيابا وفي عنا قفك وعمرك يسكو حساب كو استعمالي كراه ومسألة القراءة waxaan markaa rabaa inaan ka waramo daris kooban oo ku saabsiisan marka koowaad salaf al-umma ama dadkeenii hore iyo qiraa'ada siday u arkayeen ama siday u jeclaysanayeen intaan kelmadaasi markaa soo gudbin waxaan tilmaamayaa dhowr shay kow waqtiga waxa ugu fiican ee laga faa'iideystaa waa wax akhris waxaanay u arkayeen culimadii muslimiinta ahayd qiimaha waqtigu uu leeyahay iyo intaajka uu soo saari karo waxa ugu badan ee lagu soo saaro midaal haddaad maalintii rubuc saac ka yar wax akhrido rubuc saac intuu leegi rubuc saac more than 10 pages baad akhri kartaa qofka ugu gaabiya qiraa'o qofka ugu gaabiya caadiga ahi maalintii haddaad 10 page akhrido sanadkii misaad akhriyaysa sanadku 365 maalmood soo maahay waxaad akhriyaysaa 3650 that means akbar mawsuuca ayaad sanad ku dhammayn karaysaa ugu yaraan buugga caadiga iyo normalka ahi waa 300 ilaa 300 iyo waxoogaa page 360 page meelahaasi ama 400 page markaad tidhaahdo haddaad maalintii 10 daqiiqo wax akhrinayso macnaheedu waxa weeyaan sanadkii ugu yaraan 10 buug oo noocaasi ama dhowr iyo 10 buug oo noocaasi aad dhamaynaysa yani mawsuuca fi cilmi alxadiitha ama mawsuuco fi tafsiira ama mawsuuco fi cilmi kala ah ayaad dhamayn kartaa bimujarad inaad u qorshayso inaad akhrido maxay 10 page ama 10 daqiiqadood inaad wax akhrido maalintii haddii ay waxbarashadu caynkaan noqon kari lahayd markaynu dhahno waqtigaan dilaya imisaad waqtigaad khasaaraysaad u malaynaysaa imisa se waxbaad baran kari lahayd yani culimadii muslimiinta hore waxaa la yaqaanay waxay ahayd dad mawsiiciyiina mawsuucadu yani dad encyclopedia qof wixii la soo qaadaba ka jawaabi kara hadday culuum diineed tahay bikulli funuuniha iyo hadday tahay culuumtii casrigooda jirtay bikulli funuuniha ama astronomy ha noqoto ama geography ha noqoto ama taariikh ha noqoto ama tib ha noqoto ama philosophy ha noqoto ama riyaadaad ha noqoto xisaab ha noqoto waxay doontaa ha noqoto caalimka faqiih ee masaajidka fadhiya wuxuu ahaan jiray mawsuuca mutanaqila maktabad guuraysa oo kullu lfunuun keligii laga heli karo sabab kalena may jirin dadka kamay caqli badnayn bini aadam ka baxsan may ahayn laakiin waxay ahaayeen dad waqtiga ka faa'iideeya waxay ahaayeen dad waqtigooda ku bixiyey inay wax baran karaan maanta waxay dhahdaan average dadka caadiga ahi bay dhahdaan ugu yaraan 3 saacadood buu TV daawadaa bay dhahdaan average caadiga marka la isku dardaro 3 saacadood waqti ku dhadhow buu TV daawadaa haddaad 3 saacadood wax akhri lahayd maalin kasta maxaa soo bixi lahaa yani halka TV-guna haddaad buug ku bedeli lahayd ay fanku doonayo ha noqdo
waxaa soo bixi kari lahaa yani في khilaali 10 sanawaat ama في khilaali 15 sana waxa dunida lagu haya fan iyo waxaad jaahil ka noqon lahayd ma jirin waxa ugu badan waad baran kari lahayd laakiin mushkiladda taagani waxa weeyaan waxaan dadku ku bixinin koob wakhtigaan laga faa'iidaynin laba waxaan la xadidin hadafka qiraa'ada dadka badh waxbay akhriyaan laakiin waxay akhriyaan waxaan faa'iido badan lahayn waxaa la yaabaa kulli yoom 2 majallo ama 3 jariidadood inuu akhriyo min 3 4 5 6 beyj inuu ka akhriyo maalin kasta waxaa laga yaabaa waxaan macno badan soo kordhinaynin inuu akhriyo